munaasabadan mid lagu calansaar iyo laguna caanashubayay ugaasiyaad Daawud Cumar oo ka qabsoontay stadiumka weyn ee ismaamulka magaalada Dirdhawa isla markaana ay ka soo qayb galeen garaadyo ugaasiyo suldaano madax dhaqameed hooyooyin dhalinyaro aqoon-yahan siyaasiyiin mas'uuliyiin ka socota xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida mas'uuliyiinta ismaamulka Dirdhawa qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool ismaamulka Dirdhawa munaasabadan oo mid sare loo soo gaastay markaana umeeqaamkeeda sareeya waxa uu horeynta halkaasi ka hadlay wasiirka xafiiska madaxtooyada dawladda deegaanka Soomaalida mudane Xasan Maxamed Xuseen oo ka wakiil ahaa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida waxaana halkaasi ka soo jeediyay hadallo dardaaran iyo duco badan sidoo kale waxa isna halkaasi ka hadlay maayarka ismaamulka Dirdhawa oo halkaasi hadallo dhaxalgal ka soo jeediyay marka xigta waxaan halkan salaan diiran ugu soo jeedinayaa marti sharafta qaaliga ee ka soo qayb galay munaasabadan caleemasaarka ogaaska konton iyo afaraad ee beesha Gurgure anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca ismaamulka Dirdhawa waxaan halkan hambaliyo iyo salaam ballaaran ugu soo jeedinayaa ugaasiyaad Daawud Cumar oo aan maanta caleemasaarkiisa halkan u joogno anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dawladda deegaanka Soomaalida waxaan leeyahay xafladan quruxda badan leh lagu caleemasaarayo ugaaska waa xafladihii naadirka ahaa ee ka dhici jiray deegaankeena maantana waxay ka dhacaysaa magaaladeena Dirdhawa ayay ka dhacaysaa waxaan leenahay ugaaska la caleemasaarayo ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu noqdo ugaaskii nabadda wada noolaanshaha wada jirka midnimada Soomaalida iyo wada noolaanshaha qowmiyadaha kale ee walaalaha nahay ee wada degannahay ee Itoobiya inuu noqdo ayaan ilaahay uga rajaynaynaa intay munaasabadan socotay waxay halkaasi ka hadlay garaadyo suldaano ugaasiyo oo halkaasi hadallo ka soo jeediyay duco iyo dardaaran badan ka hadlaya marka hore afka gudidiisa ka timid Somaliland kuna hadlaya afkooda iyo afka shicibkii iyo dawladda reer Somaliland waxaanu leenahay hambaliyo beesha Gurgure madaxa waxa lagu noqdaa inaad ku ilaalisaan madaxtinimada inaad ku ilaalisaan inaad maganta u timaada ilaalisaan inaad ilaalisaan maganta ku timaada mid dumara iyo mid kaleba inaad ilaalisaan wixii ugaaska u yimaada waa baytul amiin umad walaalaabaynu nahay ummadda Soomaaliyeed maanta waji cusub oo inoo furmay midnimadeena Allah adkeeyo ummadaha kale ee dariskeenana ilaahay hamidayo sidii aan u soo duubaray oo qabiilku u keenay kii ka soo baxa Allah ka dhigo kii ka soo baxa xilka la saaray maanta oo culayska badan oo inteero qoomiyada iyo inteero Soomaaliya isugu imaaday Allah u sahlo oo Allah u dhib yareeyo ugu dambeyntii waxaa si rasmi ah lagu caanashubay ugaasiyaad Daawud Cumar oo ay soo dooratay beesha Gurgure waxaana halkaasi ka soo jeediyay hadallo u mahadcelinayo dadka ka soo qayb galay munaasabadani ugu horeyn waxaan mahad celinayaa Allah sugan suuragaliyay inay xaaladan tan ku kulanno maanta inagoo nabad ah waxaana mar labaad halkan si gaar ah uga salaamaya martida sharafta leh ee qiimaha iyo qaayaha leh xubnaha dawladda kala duwan culamaa diinka ugaasyada garaayada salaadiinta cuqaasha abaagarayaasha iyo dadweynaha isku yimaaday ee ka soo qayb galay xafladan tan caleemasaarka aan halkan ka ballan qaadaya anigoo ah ugaaska beelweynta Gurgure haddii alla idmo inaan dadkayga ku dhaqo cadaalad sinaan walaaltinimo waarta waxa kale oo aan ballan qaadaya in dhammaan qoomiyadaha kale ee kala duwan ee aan dariska nahay aanan ku wada noolaan doono nabadgelyo sinaan iyo cadaalad Cabdiraxmaan Buux Hon Cable TV garoonka kubadda cagta ee magaalada Dirdhawa